kulanti habboon daawadayaal meel kastoo adduunka daafiisa ka joogtaan waa mar kale iyo toddobaad kale iyo barnaamijkii la magac baxay hindisii hal-abuur toddobaadkan waxa barnaamijka marti ku ah abwaan sugaantiisu ay aad u xiiso badan tahay waa Rashiid Khadar Jaamac oo ka mid ah dhalinyarada foolaadka xagga sugaanta Soomaalida bal aynu eegno Rashiid iyo sheekadiina dhex martay ee ku saabsanayd sugaantiisa kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo adduunka daafiisa ka joogtaan waa toddobaad kale iyo mar kale iyo barnaamijkeennii hindisii hal-abuur waa hubaal toddobaadkan waxaa marti ku ah abwaan in badan markaynu maqalno sugaantiisu ay aad xiise gaara u yeelan doonto welibana marka laga hadlayo arrimaha jacaylka iyo howlahaasi waa kuma waa abwaan Rashiid Khadar Jaamac bal marka hore abwaan ku soo dhowow barnaamijka هذه أكبر محسن محسن أكبر صعبة ورا أبوان رشيد خبر ما هم الوالد يعني برنامج كذا قلنا أول ما حسيت مركي موجودة بيصير برنامج كذا برنامج كذا ها سيعمل حسوسها هاي أنا بدي كل يوم هي تقول دراسة بينات برنامج كي كان في موضوع بي أصلا حتى دراسة مع الفوتو سير نص وين ونكها عنه عصبينا الشيء اليوم ما أنت واحد برنامج كان يقول فلان دونا لما ما سوق أهرمات تعيك الحب صاري بل أنت هنين ما سوي كأبين بالمرة روح تقول أنت عارف تعيك حد كان مسنتي ولا ناس أنا أختم محسن هذا يقول محسن أي واحد من يجلس سؤال ولا واحد سؤال شخص قف على بعضه وحبوك مسيء إنك صورتك كل دولين حقا waxaan ka aaminsanaya anigu shakhsi ahaantii waa inuu yahay wax jira shay nolosha ka mid ah oo nolosha daa'im ku dhan ka mid ah marka uu siin kara wax wuxuu waa inuu siin kara leeyahay marka noqonayo laga hadlayo muxuu ahaye wax ka dhexeeya jacayl waxaynu naqaanaa iminka marka sidaas wax ka dhexeeya laba qof oo lamaana ah ama laba qof oo ka dhexeeya xiriirkaas si walba ha noqdo xiriir waalid ha noqdo ama xiriir ha noqdo walaaltinimo ama ha noqdo xiriir laba qof oo isjoogo iska cawda marka anigu baalka jacaylka loo yaqaano ay dadka qaarna ay dood ka keenaan idhaahdo wax jira maaha wuu jiraayo dee waa waxa aaminsanaya waa wax jiro oo meel walba kutusan oo dabeecada laga arkayo bulshada dadka laga dhex karo nolol dhan laga dhex karo marka waxaan ka aaminsanaya inuu yahay wax jira oo bulshada dhexdeedana runtii aad iyo aad u badan way maasadan dhal gobeed la yidhaahdo bal markaa waxaad ka warantay abwaan maasadaasi dareenkay ku dhalatay iyo sababteedii adigoo markaas soo koobi doonaa kabacdina isku dayiyo bal maasada sidee dhacsi inteeda gudagashan anigu jirta waxaa tiri 2013 bishii koowaad meelahaas saddexdeedii bayd maasada waxay ka hadlaysaa horta waa ammaan dumar marka la leeyahayna jacayl kaba marna jacaylkaas marka waxa weeyaan qof wax marka la ammaanayo macni waa la jecel yahay shaygaas waxaa la ammaanay macni waa wax la koorinayo la jecel yahay wanaag la jecel yahay marka tixda horta waxyaabo waxa ku jira inuu ismoodsiisa oo dareenada ismoodsiisa waxa jira qofka sugaanta tiri had iyo jeer marka uu meelaha mariyo meelaha joogo wuxuu arkaa dadyo kala duwan ishiisuna had iyo jeer waxa ay ku dhacdaa waxaan uu baarista ku sameynaya marka dumarka marka la joogo had iyo jeer muxuu ahaye waayadii hore waxay la siin jiray sugaanta qayb dhan oo ammaan dumar loo yaqaan inkastoo waayadii dambe aanay jirin oo maanta dumar ay yar tahay oo jacayl sugaanta isu dhan karta marka horta waxaa jiray dhow inan aan quruxdeeda arkoon aad iyo aad runtii quruxdeeda aad iyo aad ii cajabisay marka inanta anigu si gaar ahaan uma jeclaa laakiin quruxdeeda iyo abuurteeda ayaana runtii aad uga helay ayadoo sidaa inanta aan ka hebaana maansa tiray markaa maansadii muddo ka bacay anigoo taa niyadda ku haya ayaan tixdan hal-abuuray deeta maansada waxay ku duway waxyaabihii aan haystay ee maskaxdayda ku jiray oo dee humaagiyadii maskaxdayda ku jiray dhal gobeed baa loo yaqaanaa waxaa weeyaan markaa ay ammaanaysaa inan bay ammaanaysaa si gaara inan bay u ammaanaysaa si guudna dee hablaha soomaaliyeed oo dhan bay u ammaanaysaa marka dhal gobeed saasaan u tiri waa runtii tix ka duwan tacaha kale oo qaabkii aan u sameeyey soo kala horreysay
oo tikada marka la sameeyo marna waxay noqotaa tikada mar iyadoo dhamaystiran bay kusoo dhacdaa marna in baa kaaga soo dhacda marna adaaba gacanta inta ula tagto jeclaystay inaad adigu wax samayso ee markaasan maansada leexleexisa aan halka doonaysa ku duuda tikadan markaa sameynayay siday u kala taalo way usoo kala halkaa ka bilaabay ayaan dhex jirto markii aan xaafin xagga usoo mariyay waa hata fatbaa marka maansada wixii isku garanaysa marka waxaan isweydiin marka dhan amaanayso ama dhan amaanayso maxaa lagu amaanaya waqtigeenu joogno dee waxyaabo waxa jira ruux loo yaqaan waayadii waxyaabo ruux loo yaqaan talaba ka duwan laakiin mar kasta waxa asala tii hore welibana quruxda wax lagu amaanata dabiiciga aan dadsameeyga ahayn waxyaabaha sida amaanta dumar ka bilowdeetana waxaa sida talow amaan maxaa ka bilowdeetana dheeman iyo jawharaad iyo waxyaaba caynkaasaan ka bilaabay deetana waxaa samaataasi waxa weeye dadsaga inkastoo inka salaatiyada haddana waxaa jira malaa wax kaloo kasii qora kula jira haa wuu jiraan waxaa jira sidoo kale qorax soo baxaysa roob daay oo ka helay ayadii soo baxay oo qaan humaanki la isu geeyay marka la sameeyo wax humaan qaadashadii shay marka humaankiisa soo qornay soo qoraya ayaa qofkii la oran karaa sidaas ah way markaas aan kala saaray dhammaan soo baxaysa marka jiddu waxay oranaysaa waxay ku bilaabaysaa jiddu waxay ku bilaabaysaa lafta dhuuxa qaadiyo sida dhulka geedaha ee dhiiga iyaya lagu dhararay laamaha dhiyo iyo mareebkiyo jirintiya udlaacaha ama dhuuxa hoosiyo ubaxaa dhaqanaye ishu dhiiga eegmada ama dhalaca eedoo dhabu soo iftiinto iyadoona isdhalan rogin dhulka siisay nuurko dhaxantii ka qaado dhag markaa fallaadhaha webiyada isdhaafiya dhijaabaha ku siiso dhirta nugulka hoosana dharabkii ka qaado qurux loo dhameeyey sida dhoolkii oo daay waxaa tahay ma dhaafaan dhaqankii abkaa iyo hiddihii dhulkaagaad weli dhowrataayo daadan hooyadaaba sama kuu dhammayso dhiisha kuu xambaarto dhambaalkaada tiriba dhayga uunku yaabo dhab markaa u faaqiday dhiiggaas gaadhe dhulka jawharaad iyo haddii dheema lagu qubo dhulka jawharaad iyo haddii dheema lagu qubo dhadharaarka dahabkiyo dhaayuhu wuxuu tago adigaa ka dhiganoo sida midhaha dhuuyaal dhaayuhu wuxuu tago adigaa ka dhiganoo sida midhaha dhuuyaal qaybkaa wax dheera waxaa tahay dhabeel iyo dhamaysuka joogtay udhumada cudooniyo dhildilada gacmaha iyo dheega waaxyahaan iyo sida dhamacda dhuulka midabkaagan dhinkaa inkahaagan dhuuxiyo sida dhulayga caanaha ka caddaaday qaydiyo dimahaaga dhuxusha dhismaha huqaadka leh dhaqaaq socodka laafyaha dhexyaraanta lagu saday dheehaaga dhulka markaa soo dhawaadee dhalanteedka muuqiyo soo dhaafo hooskee dhaayaha ku siiyee dhabku soo jalleecaad dhufataa qalbiga iyo xidid dhiigga qaadee ragga looma dhuntay bilicdaadu dheeraa ma dhul aan rafaad iyo dhibba loo arkuin baa dhoolay ku noolay dhinacyada qalbiga iyo dhuuxiyo jirkaygaad ka dhex dhuuqataayo marka aad sidii dheer qalbigiisi gelisaa naftu dhalan rogeedii kaa dhowrsataayo dhuushada xasuusta ah u dhaadataayo dhalgobeed inaad tahay dhabti waanu sooroo dhalanteed ma saarnee dhalgobeed inaad tahay dhabti waanu sooroo dhalanteed ma saarnee dheyga ruux ku nooliyo ragga kii ku dheehdaa dheef muliqeeno hanti iyo dhaqaaliyo calaf muduleenoo dhaqanka ama laaleen duuya kaama dhowrteen habeen kuma dhaliileen dhibna kuguma eegeen dhulna kuma quudheen cirna kuma dhigeenoo dhinacyada dalkaagu kugu dhowralaayo goofka ama aadeen dhaayahaa u roontee abidka ama dhunteen dhaayahaa u roontee abidka ama dhunteen magatinakaasi ku dhantay inta inan la ammaan karin ayaad amaantay inantaan ninka guursada dee jannadii ifkudhabiga la helay soo maa waayo ammaanna u dhamaystay kolley inantaan loo jeedo iyo hablaha soomaaliyeed baa amaantaas ugu socota weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii aynu ka qabanay Rashiid Khadar Jaamac maansada hore ammaan jacayl bay ahayd oo dhalgobeed tan kalena waxaa dhasho iyadoo ku dheeda markaa kama fogadaya arrimaha jacaylka iyo markaa ammaanta iyo kama fogaan filayaa bal markaasi iyadana waxaad tafsiir ka bixin doontaa kooban maansada daldhasho horta maasadan badeed waa jiifto waa iska hees way gaabantahay hees weeyaan heestaas markaa
heesto markaa waa haddaynu dheernada waxay soo noqonaysaa jiifta dheer haddii hees jiifto heestu waxa weye jiifta gaaban ama madaxa gaabana ka mid ah darbasho macnaheedu waa garanaysaa dee waa darbasho waxa weye ereyga macnihiisa uu iska cadyahay waa ma heesidii ugu dambeeyey 2019 gaafiyey heesa yar wax jecel dadka ku jecel taaga ama taaga wuxuu ka hadlayaa waa dareen jacayl oo runtii maldahaadtiisuna ay aada u yar tahay oo markaan tixatirnaa laga dhex dareemi ujeedadiisa waa mid runtii haddii aan yara kaabido aan ku sheego waxa weeyaan maasadan waxaa ku saabsanay aniga dareen Soomaaliya mar marba waxaa laga sameeyaa hal jeer sugaanta waxaa hal-abuurada ama sugaanta caadiga ama abwaanada sugaanta waxay ka samaysan tahay dareenka bulshada oo dareenka bulshada markaa samaysan waayo qofku wuxuu arkayaa intaasoo qof u kala duwan oo wixii uu arkay tan waxa bulshada waxyaabay dhacay iyo waxyaabaha jira saa daraadeed waa sameeyaa waxaan wax ka sameeyo kaloo waa marka dhacda ay dhacda kale sida ku soo dhacsan ama mid kale ku sameeyaa tii week ama isla tii waqtigeeda ka sameeyaa oo iyadoo awaaluhan balaawan marka tan waa dareen Soomaaliya markuu Soomaaliya dadna waxaan kaga hadlayo aan dareenka waqtigaas soo ah dadka kuma loo kala jacayl baba ku haleelo suugaanta faraha badan leh amaanta leh jacaylka leh waxaaba kaa keenay Soomaaliya jacayl ma filayso hadda suugaanta soo badan qof hal jeer markuu jacayl akhriyo wuxuu moodaa inaan suugaanta muxuu ahay ujeedooyin la sameeyo وهذا يجرد وحاول الرام وحياة ما عرفت وسؤالك مثلا بنتوا تعال ها والله نكرة وأنا ساعات شيء مركب تيجي واحد بلا مسا تيجي هذين بيروح لراسا عاش قدر بان يومر وداسة يتمو وأنا كان دبنا يندد كان يقولها بدرين هذا إذا دشة حسوسها ديو ما حنا يو بديه دشة بدروفك على يكاد بدريو دبل وقاحة السد يبي يبو كبير تبديو يدي دباتها waxaan kugu darayaa wax dunida joogiyo dad baadiga uunbaan digahaan jecel oo dumar kalama eego qalbigan ku tiirsanay balmay dahab ahaadaan dul ahaan haweenkuba dadba kama aqaano markaan dayma dheexdaba degmay aniga wayman macnii dumarka kale oo dhan aniga wayman degmay aniga wayman aan ku daawadsiiyey baldaruuraha waqalan istabayaan xidigaha dagaaliyo dirhadan israaca nuurkooda daalaco dhulka hoos u daymood webiyadan durdurayiyo dixidiya dareentiyo inta duur ku magac dheer intaasoo istidabto dacal la isku mariyaa quruxdaga daaroonteed deegaanka aad ku nooshaan u dalxiis isleeyo dulna hooyadaa iyo danab aabbahaa iyo dad intaa la dhalataan dadba ugu jeclahayo daymadan jaleecaba adaankaa tubsanaya leendoo ma siiyee diinkuba meshiisu naxariis daraaddeed daymada ku koriyaa anna daawashada guud marka aan ku daalaco naftu waxay dareentaa inaan hadalka daayo sida haada duule oo aan dartaa iyo ubaxaan daruuraha uga doonay awgaa hadidku ugu deeqee waxaan uga dan leeyahay bal intaan daruubaha hadba jiifta daalacan derbiyada ku qorayiyo dibdhay hawaanada derbiyadaa sheegay macni waa facebooka maxaan weyna kuu dilay maahmaahdaa weyniyo murti duuga kugu idhi maxaan xaajo dooroon diirka kaaga qaado dul ahaan websaydada warqad kuugu daadacay dusha sarana kaga qoray dadkaan ugu jeclahay way inantaa markaa si walboodu la hadashay waad amaantay meelo fara badan baad la martay inantaasi markii dambe ka dambeysay intaas ku dambeysay runtii horto ticasa ka muuqata waxay moodaa in yaroo isaadkeynayna inta marka hore ku jirtay inaantu inta hore way ka soo dhawaacday oo isfahanay inantii marka dambe oo isfahanay ilaahay markaa isu dib markayn leeyahay toddobaadkan intaasaynu kusoo afbeeri doonaa barnaamijkii ay ka qabanay Abwaan Rashiid Khadar Jaamac oo ka mid ah markaa dhalinyarada foolaadka xagga suugaanta barnaamijkaas iyo barnaamijyo lamid ah ku kulmi doonaan waxaan kaga tegayaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi